qaaday qaybtan la faafinayo horta YouTube-kii la gelinay hadalkayga waa qayb la soo jaray xagga horena waa laga jaray xagga dambana waa laga jaray inaan xadiis sharxayo kuma jirto kaliya hadalkii oo kooban oo dabadana go'an horeyna go'an oo fawaylu lil musalliin oo kala baa la soo qaaday adigu fawaylu lil musalliin hadii lagu istaaga ka war halaag iyo cadaab waxa iskale kuwa tukada oo xaggana lagu dhaafin xaggana lagu dhaafin يا الذين معك النبي الذين مع صلاتهم ساهون هذه اللي قصي درفانت لكن هذه اللي قتشروا فويل للمصلين بس الليلة مع زوبحي يعني هذا الضوء أول حقنا كجوان حقنا كجوان غرض معين يضم بالجلية تقريبا قصة كمركة كيني إن عقيدة أو مسألة كه الله واتاين إن العديو محاكة شرا حاجة بيصل كل هذا wadadaas muxuu ahay warka sameeyay qaabka u dhaqmay waxay sheegayaan wax ma ka jira misamay tayib xadiiska marka aan sharxayay ku yimid jumladu ku timid ama kelimadu ku timid arinta tilmaamaysa waa xadiiska Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu رسولك صلى الله عليه وسلم وحيد أنس كان يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه نبي وحوس وقال يشريك ورد يا أم حرام بنت ملحان مركاسي عنتسين شرت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت أم حرام تحت عبادة بن صامت أم حرام وحي أهيد عبادة بن صامت باقبي شري قال بك قرسي بقرلين مركا مقبل فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأطعمته sidii caadada ahayd nabigu ugu iimaan jiray bay maalinka maalmaha kamida yu nabigu ugu yimid markaasay cunto siisay thumma jalasa tafli ra'sahu kadibna way fadhiisatay markuu nabigu cunteeyay kadib tafli ra'sahu iyadoo madaxiisa injirka baadhaysa ama injirka guraysa kelimada hoosta ka xariiqa marka waa meesha hadalku oo muxuu ahaayay ku biyo shuban doono tafli ra'sahu يا ضحية كلمة يا عبري تفلي رأسه ما أنا عبري أنس بعبري طيب أنس هدو تفلي رأسه النبي كو عبري كلمة تفلي هدي نقوم ويدو إن شربا لقباري معناها هدي يلون ويدو وصح قفك مركا أنا إسكاله كلمة دي سيحن مفسر لكن كلمة تفلي هدي نقطو إن شربارد هدي نقطو يا الله يستاهل الكاميرا هذو خالد يا صح نقطه بد خالد يا صح وحو يا شباب انس با اسكله سوما وهذو نقطه تفسير كتفلي هذو نقطه تفلي راسه وهذو نقطه انجير بارد ام انجير كغريد هذو معناها ييلان واينا خالد كان اسكله صور عاد ما halka markay igala socdo ثم جلس تفلي راسه فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي waa seexday xadiiska intiisa dama waa dheer tahay maqsuudkeena ma aha laakiin marka la soo ururiyo wuxuu leeyahay nabigu waa seexday marka kadibna waa soo toosay isagoo qoslaya markaas waxay tiri ummu haram rasuulka ilaahayow maxaad ku qoslaysaa maxaa ka qoslinaya markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam dad ummadayda kamida oo la ii soo bandhigay oo ku riyooday ayagoo duulaan ah oo jidka ilaahay duulaan ku ah oo badda korkeeda fuulayo barda maraya ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة أيقو أدمد مضح سريره دي سارن أو كلي بض مريا والدولان والجهاد بأسعودان مركز سوحا ريبي تري يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم رسول الله ومحرم وي رسول الله اللي ويدي إنه كوا إغام يدقو خلاص بض كو جهاد مري دونتي جهاد كآدي دونت إنه إله يقدره فدعا لها النبي وأدعي صلى الله عليه وسلم الله كقدر بالي kadibna nabigu hadana waa seexday sallallahu alayhi wasallam hurdadii ku noqday hadana waa soo kacay asaga oo nabigu sallallahu alayhi wasallam qoslaya oo muusonay markaas hadana waxay tiri ya rasuulullah maxaa ka qosliyay wuxuu yiri hadana ummadayda qaar kamida ayaa la ii soo bandhigo badda marayo duulaan ku socda markaas ana waxay tiri rasuulka ilaahay oo hadana ilaahay ii weydiin uga mid dhigo qolada dambana ilaahay ugu daro ii weydii rasuul ilaahay waa gabadh jihaad jecel markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam anti min al-awwalin adigu qolada horaad ku jirtaa bale
qoladan dambe matiida kuwa horaad gashay. ummu xaraam binti milxaan badday martay zamankii mucaawiya uu ciidankii badda maray hogaamiyey, cumaan ibni cafaanna uu xilligii muslimiinta uu ahaa khaliifka, mucaawiyana uu shaam haystay, ayaa ciidankii badda ka gudbay oo qubrus u gudbay ayaa dhacay. ciidanka jasiiraddii qubras u gudbay bay la socotay ummu xaraam. halkaas markay tagtay oo baddii ka baxeen bay gaadiidkay saarnayd ka dhacday, sidaasay ku dhimatay radia allahu tacaala canha. halkaasay ku aasantaa la yidhahda. riwaayaadka qaar ka mida waxay tilmaamayaan ma ahe markii laga soo noqday jasiiradda qubrus oo shaam lagu soo noqday oo badda laga soo baxay bay gaadiidka ka dhacday oo meeshaasay ku dhimatay. labadooda waa laga doodaa marka. xadiidku waa xadiidkaas. xadiidka ayaa wariyey. xadiidku turuq fara badan buu ku soo arooray, laakiin riwaayaadkiisu waa isku dhow yihiin biljumla. riwaayada laakiin ugu dhammaystirnaanta badan alfaadda xadiiska uruurisay waa riwaayada isxaaq ibni cabdillaahi ibn abi talxa oo alfaadda matniga inteeda badan isu keentay. waana riwaayada keliya ee ay ku soo aroortay falyu ummi xaraam ra'sa rasuulillahi sal lay slam, inay madaxa nebiga sal lay slam falyi ku samaynaysay riwaayada ay ku soo aroortay. riwaayada ayaa soo saaray marka. waxaa soo saaray oo wariyey oo kutubtooda ku soo saaray alimaamu malik fi lmuwaطa kitaabu ljihaad baabu targhiibi fi ljihaad. isla ariiqiisa waxaa ku wariyey alimaamu albukhaari fi saxiixihi dhowr meelood buu ku wariyey kitaabu ljihaad wasiyar baabu ducaai biljihaadi washahaadati lilrijaali wاnnisa wuu ku soo saaray. kitaabu tacbiirna wuu ku soo saaray baabu ru'ya nahaar. waxaa kaloo ku soo saaray kitaabu listidaan. muslim baa isagana ku soo saaray kitaabu limaara ayuu isaguna ku soo saaray. abu daawuud baa soo saaray sunankiisa kitaabu ljihaad fadlu lghaswi fi lbaxri buu isaguna ku soo saaray. waxaa soo saaray tirmidi fi jaamicihi kitaabu fadaa'il ljihaad buu ku soo saaray baabu ma jaa fi ghaswi lbaxri. nasaa'i baa soo saaray labadiisa kitaabba mujtabaha ayuu ku soo saaray baan dhihi lahaa kitaabu ljihaad fadlu ljihaadi fi lbaxri buu isagana ku soo saaray. waxaa soo saaray cabdullahi ibn mubaarak fi ljihaad buu ku soo saaray. waxaa soo saaray moxamed ibnu sacd fi tabaqaat alkubra. waxaa soo saaray axmed ibnu xambal musnadkiisa, abu cawaana mustakhrajkiisa kitaabu ljihaad baabu fadli lghaswi fi lbaxri buu ku keenay. ibni xibbaan fi saxiixihi ayuu isaguna ku keenay. laalakaa'i fi sharxi usuuli ictiqaadi ahli sunna ayuu ku keenay. abu nucaym wuxuu ku keenay fi lxilya iyo macrifatu asaxaaba iyo dalaa'il nubuwa saddexdaba wuu ku keenay. bayhaqi baa keenay isagana fi sunan lkubra. weli waxaan ka hadlayaa riwaayada ay ku jirto tafli ra'sahu yay raggaasi warinayaan. waxaa isagana soo saaray ibnu casaakir fi taariikhi madiinati dimishq ayuu isaguna ku soo saaray lafdada iyada. kulligood waxay ka warinayaan malik ibni anas can isxaaq ibni cabdillahi ibni abi talxa can anas ibni malikin bay ka warinayaan. xadiidka marka waxaa soo saaray taqriiban 15 ka badan a'immada masaadirta iyo maraajicda xadiidka loogu tago oo ay ka mid yihiin masaadirtii ugu waaweynay. bal waxaa la dhihi karaa kitaab xadiioo ka madhan waaba yaryahayba taqriiban. inta badan ajzaada iyo masaaniida iyo sixaaxa iyo sunanka xadiiskaasi waa ku yimi. ayb xadiidka isaga laba ishkaal baa marka ku jira. ishkaalaadka ugu muhiimsan ishkaalka koobaadi waxa weeye ummu xaraam binti milxaan gabadhaa la yidhaahdo nebiga sal lay wasalam madaxiisana way taataabanaysa, inay baadhaysay oo injir ka baadhaysana lafdigu waa sheegay. taasi waa masalada inoo imaan doonto. ishkaalka koobaadi waxa weeye jawaabta u baahan ummu xaraam markay nebiga madaxiisa taataabanayso maxay soo ahayd? ma ajnabi bay ka ahayd? sayse culimmadu u tawjiihiyeen arrintaa iyada ah? waa ishkaalka koobaad waa. oo waxaa ka dhalanaya nebigu sal lay wasalam ma naag ajnabi ka abuu la gooni noqday? ma madaxeeda istaabatay? ma jidhkoodiiyo jidhkeediiyo jidhkiisaa istaabtay? soo axaadiis badanba nabiga kama soo aroorin sal lay wasalam oo uu leeyahay innii laa usafixu nisa, oo uu ku tilmaamay ninka ajnabiga inuusan naagta ajnabiga taaban karin. see loo tawjiinaya waa xadiidkan way macna. ayib taa iyada ah culimmadu dhowr qowl bay ka leeyihiin. qowlka koobaadi wuxuu leeyahay waa iska gaabinaynaa tan
maqsuudkeenna muhimka ma ah laakiin maadaama xadiiska aan keennay ishkaalaadka qaar ka mid oo dadka qaarkood ku dhalatay ka mid tahayo seebaa haweeney ajnabiga ee nabiga u taataabanaysa sallallahu alayhi wasallam culimadu waxay kaga jawaabeen dhowr qowl bay marka kale yihiin qowlka koobaad waxa weeye qaar ka mid ah waxay leeyihiin nabiga sallallahu alayhi wasallam haweenta ajnabiyaadka fiirintooda iyo inuu la goonin noqdo iyo inuu gaadiidkiisa gadaal ka saaro iyo inay madaxiisa taataabtaan nabi maxamed bay u bannaanayd laakiin isagay khaas ku ahayd maxaa yeelay waxay leeyihiin sida dumarkiisuba ay ummaddiisa hooyooyin ugu yihiin ayuu isagana ummaddiisa aabba u yahay marka dumarka ummadda asaga macsuum weeye waa dhowrsoon yahay loogama baqayo inuu khalad ku dhaco sidaas daraaddeed nebigay khaas ku tahay sidaasay qaarkood marayaan yaa maraya sidaa waxaa maraya ibn cabdilbar abulcabaas alqurtubi saaxib almufhim waxaa maraya alxaafid ibnu xajar ibn alcarabi buu ka soo guurinayaa cabdulaahi ibnu wahab imaamkii jaliilka ahaa ee salafiga ahaa mada salafka ka mid ahaa ayuu ka soo guurinaya nebigu macsuum buu ahaa xubinkiisa tarankana waa ka adkaa dumarkiisuu iska celin karay kuwo kale iskaba dhaaf ayb wahuwa almubara'u min kulli ficlin qabiixin wa qowlin rafath fayakunu dalika min khasaa'isihi buu leey waxyaalaha nebiga ku goonidaa bay ahayd alxaafid adimyaati ayaa isaguna sidaa odhanaya oo isagana khusuusiyadaasi tilmaamaya ibn xajar caleyh raxmatullah markuu ka soo guuriyey xaafid adimyaati hadal ka soo guuriya wuxuu leeyahay wahuwa ixtimaalun qawiy ixtimaalkaasi waa mid xoog badan buu leeyahay ibn xajar laftiisa wuxuu leeyahay markuu aad uga niqaasho jawaabtiisa gabagabada ibn xajar waa xaafidkii wey fatxulbaariga lahaa wuxuu ku gabagabaynayaa wa axsanu اljwibati dacwa alkhusuusiya buuhi jawaabaha ugu fiican ee xadiiska laga bixiyo waa in la yidhahda arrintaasi nebi maxamed bay khaas u ahayd oo nebigu soo waxyaala khaasa ma lahaan jirin ya axkaam nebigeenna ku khaasoo ummaddu aynan la wadaagayn soo ma jirto taasaa lagu daray marka ayb walaa yarudduha kownuha laa tahbutu ila bidaliil buui lianna daliil cala dalika waadix haddii la yidhaahdo inay nebiga khaas u ahay daliil u keena lianna alkhasaa'isa laa tahbut ila bidaliil daliil u keena haddii la yidhahdana daliilkeedu waa iska cad yahay buui yaa dhahaya ibn xajar sidaasuu marka rajaxaya waa weji marka culimmada qaarkood ay ku tawjiihiyaan xadiidka sidoo kaleeto wuxuu leeyahay wاladii wadaxa lana biاladilati اlqawiya ana min khasaa'is الnabiy sal lay waslam jawaazu اlkhalwati biاlajnabiya wاlnadar ilayha wuxuu leeyahay sida noo caddaadoo adilo xoog badan noogu caddaatay nebiga khasaa'istiisa inay ka mid ahayd haweenayda ajnabiyada inuu la gooni noqon karo fiirinna karo wuxuu leeyahay wahuwa aljawaabu الصaxiix waana jawaabta saxda ah can qisati ummi xaraam binti milxaan fii dukhuuliha calayha wa nawmihi cindaha wa tafliyataha ra'sahu walam yakun baynahuma maxramiyat walaa zawjiya maxramnimana kama dhaxaynin xaasininna isuma ahayn haddana maca dalika wuu soo galhayay wuu la gooni noqonayay madaxiisa injirta ka guraysa ama ka baadhbaadhaysay maxaa la dhahayaa way marka sida xooga badane wuxuu leeyahay waa inay nebiga khaas ku tahay salawaatu rabbi wasalaamu calayh sidoo kale alimaam alcayni oo isagana iska leh kitaabkiisii uu ku sharxay cumdat lqaari sharx saxiix albukhaari asagana sidaasoo kale u leeyahay inaan idinku mashquuliyo ma rabo lakin waa u laaban kartaan waxaa ka mid a sidoo kale siyuuti baa ka mid a isagana sidaasuu tilmaamaya ikhtisaasaadka nebiga sal lay waslam ayuu ku darayaa oo isaguna ku sheegaya khasaa'is ulkubra ayuu isaguna hadalkaa ku leeyahay ayib cumdatulqaarigna sidoo kale waan soo sheegay hadal waa hadalka tawjiih waxa weeyaan ummu xaraam iyo nebiga sal lay wasalam nasab iyo dhalashana kama dhaxaynin nuugmana kama dhaxaynin wax calaaqa ah oo nasabiya walaa ridaacna kama dhaxaynino ma jirine laakiin waxaa jirtay hawshanaa nebi maxamed khaas ku ahayd kaasoo tawjiih ma ah tawjiiha labaad oo culimmada qaarkood meed waxa weeye ana hada khaasun biummi xaraam wa ukhtiha ummi sulaym qoyskanay arrintani khaas ku ahayd ma aha ummadda dumarkooda kale lama qabin laakiin waxay khaas ku ahayd
حرام iyo سليم oo walaala ah xadiis kale oo badan baa sugan inuu nabigu Sulaymna gurigeeda tagi jiray waaba oo saxiixaynka iyo qeyrkood ku jira marka qoyskan ilma binti milhaan ah nabigu xiriir gooyay la lahaa khaadimkiisii Anas baa ka dhashay si gooniyu marka ugu xidhnaa bay leeyihiin arintani marka waxay khaas u tahay qoyskaas ay khaas u tahay sida waxa dhahaya al-Hafiz ibn Mulaqin وحليه ومن أحاط علما بنسب النبي صلى الله عليه وسلم ونسب حرام علم ألا محرمية بينهما روحي علمي أهان أكوب النصب كالنبي هي النصب حرام وحاوصوا بحيسا وعدانيسا إن وح محرم لما أكد حين دحضر إن دحولين وحنا أرنت عديب لي هاي الإمام حافظ شرف الدين الدمياطي جزء بك قريب كتاب بك قريب دمياطي بك قريب وحول إليه وهذا خاص مركع يا رهية ابن ملقن وهذا خاص بأم حرام وأختها سليم أرنتني وحي خاص كتهاي حرام يا ولا شد سليم وحنا كل شيء يقول لي كتاب كي قال لي هذا العدة في معرفة رجال العمدة وحدها ابن ملقن مركع رأيك على الصغر مريء شق رأيك صدحات علماء القوانين وحوي النبي صلى الله عليه وسلم محرم بوها حرام محرم بيسوها يعني دد يصب النام بأهين ومحرم لماذا سو أما قرابة نصب كدحيس أما قرابة نوج ما كدحيس إلا الله بدأ محرم يدو يكتم هذا علماء هالكاسين مرين وحكم إذا علماء الحافظ بن عبد البر وحليه هي لا يشك مسلم أن حرام كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم محرم مسلم مشكين كربوري إن حرام نبي محرم وهي صلوات ربي والسلام عليه فلذلك كان منها ما ذكر في الحديث صدرت بحديث كوحل لغوش شيء وإن مدحي سباريسا ومدحي معناه أي كبوريسا إن أي معناه أي شرتاوي وحليه مركا إن بدن الشيوخ ذي كم ذا يا وحي كشجين عن محمد الباجي عبد الله بن محمد بن علي ننكر إلى محمد بن فطيس إسكنداف هذا وربه هالكجلي نوجمدنا قارب الشيخ بن عبد الله بن وهب oo ninka ugu horeeyay oo mas'aladan taabtay ah ayaa wuxuu leeyahay haram ihda khalati nabi sallallahu alayhi wasallam min ar-ridha nabiga habaryarihi oo dhanka nuugmada ah mid kamid ay ahayd buu leeyahay yaa dhahaya Abdullah ibn Wahab waa imaam jaliil ah oo ragii ay xadiista ka qaateen muxuu ahay asxaabu sunan iyo saxiixaynka iyo qeyrkood nin hore way طيب فلذلك كان يقيل عندها وينام في حجرها وتفلي رأسه سيدا درادت بي النبي صلى الله عليه وسلم أكتاد ugu qayluushan jiray uu seexan jiray dhabteedu ku seexan jiray madaxiisay ka baari jirtay maxaa injirta ka baari jirtay intaas oo dhan buu soo goorinaya marka qoladaasina halkaas ay marayaan waxa kamid ibn Abdul Bar mid la yiraahdaba wuxuu leeyahay ama xagga nasabka waxa laga raadiyo ama xagga nuugmada waxa laga raadiye mahramnima ka dhaxaysay buu leeyahay halka dadka maraya waxa kamid ra'yiga al-Imam an-Nawawi alayhi rahmatullah wuxuu leeyahay ittafaqa al-ulama ala annaha kanat mahraman lahu sallallahu alayhi wasallam waxay isku waafaqsan buu culimadu inay mahram u ahayd nabiga sallallahu alayhi wasallam waqtalafu fi kayfiyati dhalik laakiin waxay isku khilaafeen qaabkee man nuugmay qaraabo ugu ahayd mise nasab ay qaraabo ugu ahayd taa way isku khilaafeen laakiin waxay isla ogol yihiin in ay mahramnimo iyo qaraabanimo ka dhaxayso taa way isla ogol yihiin اتفاقاسي وسو كوريي طبعا ما صحسنو علماء قبطه oo ka doodsan baa jirtaan soo sheegnay طيب ابن حجر wuxuu leeyahay Abu al-Qasim al-Jawhari iyo Daawudi iyo Muhallab intuba waxay muxuu ahay gooyeen oo jazmiyeen hadalka uu yiri Ibn Wahab oo inay nabiga sallallahu alayhi wasallam dhanka aabe ay qaraabo kala ahay ayay muxuu ahay sheegayaan warka marka la soo ururiyo qoladaas waxay leeyeen ama nuugmay qaraabo kala ahayd ama nasab iyo dhalashay qaraabo kala ahayd labada marka la sii kala saaro nasab haday qaraabo kala ahaan lahayd ama dhan hooyo ama dhan aabo ma qarsoomeen لأن عربت وقتها أنصابته أبي وجود ذلك شيء سيدا هذا كلامه مقالوين كمرك الله صوّق لي أنصابتي اللونتي معه بل روح إلى طبعا إلى تقريبا كبضا بيجرن شيء يا قراب الله ساس تراد إني قرابا نصبني ما كان حيصل للجرن ويشك الجلو مسرور بكرت وبعيد ولو علماء قاركون هوا مرين لكن واحد صورة الجلأ قرابا نمدا نجمدا قرصومي كرت
saas daraaddeed baa xataa waxay ka qarsoontay caaisha sooma caaisha waa kii ninkuu yimid ee uu ku yidhi muxuu ahaayey aabbaha baan ahay xagga nuugmada waa caaisha diiday haraadhaafay tiri goormaad aabba ii noqota aniga adeer miya adeerka oo nuugmada jazakallahu khayr marka waa ka qarsoontay waa garan weyday laana carabtu waxay samayn jireen oo caado u ahayd inay ilmuhu markuu dhasho haweenay kale loo dhiibo nuujiso waxaa laga yaabaa intay naaska nuujiso kadib in la halmaamo ama ay qarsoonto haweentii nuujisay mar dambe iska soo baxdo Uqbat ibn Amir miya ninkii isagoo reerkiisii aroosay oo aqal galay oo muxuu ahay waxoogaaysi isugu rakiban yihiin haweeney ordaysa intay u timid ku tiri aniga tan adiga iyo tan aad wada joogtaan baa anaa idin wada nuujiyay ma ka idhaaf muudmaad ay nuujinin isagoo orday nabigu sallallahu alayhi wasallam rasuulka ilaahay aniga islaantaydii wada joogno isku barakaysan baaba islaan ordaysana soo gashay sidan ay tiri marka nabigu sallallahu alayhi wasallam hadiiba warkaas yimid seed ula joogtaaba meesha maxaa ka muuqda marka xadiis far badan oo macnaha tilmaamaysa in nuugmada qaraabanimadeedu qarsoomi karto sidaas daraadeed asaxul awjuh waxa weeyaan in la yiraahdo waxa ka dhaxaysay nuugmo qaraabanimo nuugmo oo qarsoonayd oo la garan waayay ayaa ka dhaxaysay wajiga ugu fiican risaalo madax bannaan baa laga qoray ishkaalka iyo ishkaal bixintiisa inta ka badanna ku si dheeraan bayna maadaama hadda uusan munaasabada uusan ahayn xadiidkaas marka xaraam dantan kala hayna wax weeyaan hadalkii ama kelimadii ujeedadeenu ahayd oo xaraam inay madaxa nabiga sallallahu alayhi wasallam falyi ku sameeyay waxa uu markaati kacaya sidoo kale xadiis muxuu ahaayay kulthum ibn al-mustaliq wuxuu leeyahay kaanat zaynab tafli ra's rasuulillah sallallahu alayhi wasallam zaynab baa nabiga madaxiisa waxay ka baadhbaadhaysay injir wa indahum ra'atu uthman ibn mad'un wa nisaa'un min al-muhajirat nabiga marka waxa la jooga uthman ibn mad'un xaaskiisa waa ninkii muhaajiriga ahaa iyo dumar kale oo dumarkii muhaajiriinta kamid maxay dumarku nabiga ka qabanayaan yashkuuna manazilahunna wa annahunna yukhrajna min waxay ka sheeganayaan guryahooda oo waxay ku dacwo ka yihiin guryahooda laga saara marka nimankoodu dhintaan banaanka loo saara guriga waa la dhaxlaa waa laga eriyaa طيب ويضيق عليهن فيه ولو عيديا فتكلمت زينب سو نبي مدحيس صلى الله عليه وسلم مينن كبارين جير كما بارين dumarkii markay hadalkoodii maqashay ayay waxay samaysay way hadashay wa tarakat ra's rasuulillah sallallahu alayhi wasallam madaxiina way iska daysay hawshay haysayba sheekadii bay kaga jeesatay oo hadalkii bay kaga jeesatay markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam innaki lasti takallamina bi'aynayki takallami wa'amali bi'amaliki indaha kama hadlayside hadal oo shaqadaadana qabo ku yiri yani shaqadana haysay madaxa nabiga sallallahu alayhi wasallam ay baarayso iyo timihiisa ma indhaha qabanay mise afka qabanay soo indhuhu ma qabanayaan marka indhahana hawsha ka wad arabkana ka hadlo afka ka hadal ku yiri laakiin shaqadana joojisay wad buu nabigu sallallahu alayhi wasallam shaqadana joojin saasa lagu yiri markaas nabigu sallallahu alayhi wasallam maalinka wuxuu amray an yuwarratha min al-muhajirin an-nisaa muhaajiriinta dumarkooda in guryaha la dhaxalsiyo ayuu marka maalinka nabiga amray sallallahu alayhi wasallam gurigii lagaga dhintay inaan laga saarin oo banaanka loo bixin waxay leedahay kulthum min mustaliqaasi wuxuu leeyahay famaata abdullah fawarrathathu ama wurrithathu imra'atuhu daran bil madina abdullah ibn mas'ud baa dhinto zaynab ninkeedii ah gurigii uu madiina ku lahaa baa dhaxal loo siiyay yani xadiiska lagu dhaqmayaa Sooma macnaha wax weeyaan lagama saarin dhaxal baaba loogu wareejiyay xadiiskaasi muxuu tilmaamayaa zaynab inay nabiga madaxiisa tafli ku sameynayso falyi ku sameynayso zaynab taasi waate zaynab taasi al-imam ahmad iyo kutubta sida ay tilmaamayaan xadiiska qoraysay waxay ka dhigayaan inay tahay zaynaba imra'at ibn mas'ud saas daradeed waa imaam ahmad wuxuu ku keenay musnad imra'at ibn mas'ud buu ku keenay
marka zaynabtu waa xaaskii cabdullahi ibn mascuud nebiga madaxiisana way baadhaysaa sidii muxaraam oo kale soo ishkaal labaad maaha ilaahay amarkii wadaadadii ka hadlay xadiiskii muxaraam markay takhriijinayeen oo ay arrintii bushi bixinahayeen muxaraam nebigay qaraabo u ahayd xadiidkan zaynab baba keeninba waa ishkaal isaguna soo kordhay oo zaynabna xaggay qaraabo ka ahay iyadana waa ishkaal imaanaya ayib laakiin ninka la yidhahdo alimaamu sindi ayaa wuxuu yidhi qiila waxaase la yidhi zaynabtani ma aha zaynabtii ibn mascuud xaaskiisa ahayde zaynaba binti jaxshi waaye waa xaaskii nebiga sal lay waslam laakiin ishkaalka imaanaya waxa hadday zaynab binti jaxshi tahay maxaa musnadkeeda loogu keeni waayo zaynab imra'ati mascuud musnadkeeda lagala doonay ayaduna waa ishkaal jiro xadiiska ayaa soo saaray xadiidkana waxaa soo saaray axmed lafdigaana isagaa iska leh qolada xaqiijisay musnadka oo sheekh shucayb al-arnaawut mushrifka uu yahay waxay leeyihiin isnaaduhu xasan min ajli kulthum sanadkiisu waa xasan oo kulthumkaas yaa xasan alxadiid abu daawuud baa sidoo kale soo saaray xadiidka fi sunan wuxuu ku soo saaray kitaabu limaara baabun fi ixyaa'i almawaat waa xadiidka kulthum ee zaynab inay nabiga madaxiisa sal lay waslam baadhisa isla ariiqa abu daawuud waxaa ku wariyay alimaamu albayhaqi mujalladka lixaad sheekh albaanina wuxuu leeyahy saxiixu lisnaad soo qiso labaad maaha oo gabadh kaloo nabiga madaxiisii baadhaysa maaha oo ay ku timid kelimadii ahayd taflii ra'sahu ayib bayhaqi wuxuu ku soo saaray sunanka bayhaqi waa fi sunan dalaa'ilka maaha ayib xukunka marka dumarka muhaajiraadka guryahooda ha loo daayo haddaan wax yar bilmunaasaba aan tacliiqino xukunkaasi waxay leeyihiin culimmadu wuxuu khaas ku ahaa dumarkii muhaajiraadka wixii ka dambeeyey haweentu dhaxalka unbay ka qaybgeli mooye guriga ma laha laakiin xukunkaasi wuxuu khaas ku ahaa dumarkii muhaajiriinta ama muhaajiraadka ahaa ayib laba xadiis baan marka haynaa soo maha intayna kuwa kala gaadhin su-aasha imaanaysa waxay tahay marka nebiga sal lla lay wasalam kelimadan falyiga intaynaan gaadhin iyo sharaxeeda ayaa waxaan doonayaa inaan idhaahdo oo aan dadka u xaqiijiyo nebiga sal lla lay wasalam shakhsiyaddiisa iyo cirdigiisa iyo nasabkiisa iyo sharafkiisa ciddii gaadha walow sarbeebba ha noqoto inuu islaamka ka baxayo waa alijmaac inuu diinta ka baxayo shaki kuma jiro masaladu waa masalo culus masalo sahlan maaha ilaa culimmadu ay ka yidhaahdaan xataa xukunkiisuna waa dil cid cafin kartana ma jirto walaa xaakim muslim walaa cid xaddaa ka saamixi kartaa ma jirto nebi maxamed baa saamixi laha hadduu nool yahay isagiina waa dhintay cid isaga xaqiisa ridi kartana ma jirto masaladaas waa masalo culus maaha ayib saas daraaddeed ninkii nebiga ka agbaxa sal alla alay wasalam oo isku taaga sida dad badan oo soomaaliya oo dhallinyarada u badani ay war nebigaaga waxaa ku sameeya nebigaaga kan iyo warkaa isaga waa war gahalnimo waay ama ilaahay caaya oo rasuulka caaya oo malaa'igta caaya ama diinta caaya shaki ma laha kaasi wax way kuma hayo kaasi kuma hayo masaladaa marka waa masalo shaki uusan ku jirin ruuxa muslimkaana u baahan inuu aad iyo aad taxadirkiisa ka qaato wixii nebiga sal lay waslam wax yar qodob soo maa qodobka labaad waxaad ku dartaa nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh axaadiistiisa sugan haddaad diiddo oo ka sugnaato oo ama aad qasad u taxriifiso ama aadba meesha ka saartana ayadana diinkaagu halis buu ku jiraa laba marka inaan iswaafajannaan u baahna wixii nebiga ka sugnaadayna inaynu sugnoon rumayno oon ogolaanno xataa marmarka qaarkood baha shaytaan iyo naf ha kuugu sheekayn war waxoogaa maba socon karta show way socon ku dheh saa nebi maxamed bayba ka sugantahay sayna u soconay iyo nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh sharafkiisa iyo karaamadiisa iyo cirdigiisa iyo taqdiirkiisa in la ilaaliyo mid labaadna baraarujin bay mudan tahayoo marnaba ma suuroobi karto waana waxaan la tasawuri karin waa xadiis nebi maxamed ka sugan inuu isagii cay ku noqdo
ama saxaabadiisa tilmaan ay nebiga ku tilmaameen inay cay ku noqoto taana marna malahagaysan gelin laanna rasuulku inuu hadalu isagu isku caayahayo ka sugnaato ma dhici karto soo ma rabbi inuu ka yimaado war noocaasi warkiisa iska badaaba saxaabadiisa soo ma marnaba ma suroobi karto saxaabi sugan munaafiq meesheeda waa laakiin saxaabi ah hadal iyo tilmaan inuu nabiga ku tilmaamo haddana meel kaga dhac iyo dhaawac u geysanaysa nabiga sallallahu alayhi wasallam abadan haddaad aragto marka xadiis nabiga tilmaantiisu ku timid ama saxaabadiisoo tilmaamaya tilmaanta noocaana siinaya adigana aad istiraahdo waramay nabiga meel kaga dhac ku tahay ittahim ra'yaka adigu isku noqo meel kaga dhac meesha kuma jirtee adaa khaldan markaa fahamkaa kaa khaldamay ismoodsiis baa kugu jira laakiin ma dhici karto in ama nabiga cay ay ka timaado isaga lafihiisa isgaadho ama saxaabadiisu waxay ku sheegeen inay cay iyo masabiya tacni noqoto ma suroobi karto qaacidadana waa qaacida aan doonayno inaan hormarino taqriirino inta kadib dhowr muqaddimaan doonaya inaan ka hormariyo intaanan xadiiska u gudbin iyadana muqaddimada koobaad waxa weeye xadiidka waxa ku imaan doonta marka la sharxayo kelimada tafli ra'sahu markay culimada luqadda iyo culimada sharciga ay sharxayaan waxa ku imaan doonta tafli ra'sahu min alqamli nabiga madaxiisa waxay ka baadhbaadhaysay ama ka guraysay injir qamli bay ka guraysay sidaasaa ku imaanaysa kutubta inoo soo socota waxaan doonayaa marka intaanan gaadhin ama hadallada aimada inoo soo socota intaanan gaadhin baa waxaan rabaa inaan caddeeyo baashan qamliga la yidhahdo maxay tahay sideedaba war qamliyey ma injir baa tahay ma injir booda ma shilinba maxay tahay injir baashan qamliga la yidhahdo ma baalkii daaniga la dhihi jirayba qamliga maxaa la yidhahda dabeecadiisu muxuuse yahay iyo khasaa'istiisa muqadimada koobaad qodobkaasaan kaga hadlaynaa waxaana doonayaa inaan soo guuriyo alimaam kamaaludiin adamiiri waa ninka iskale kitaabka la yidhaahdo حياة الحيوان الكبرى حياة الحيوان الكبرى وكتاب قيمة وحي حيواناتك كصابصن إيو خصائص توضا إيو وحي كصو أروري إيو أحكام توضا شريعة إيو وكاقها الله مركوانا إمام شافعي المذهب وحو شرحي منهاج كإمام النووي وحو شرحي كتاب كاللي هذا النجم الوهاج شرح المنهاج أئمدي آدك محدث نووي واللغوي وانا فقيه شافعي وحليه هي كتاب كاس دمير وحو كليه هي القمل معروف واحدة قملة قمل وحل إذا هذا ولا يقانا مفرد كهال مركو يهينا قملة لذا قملة والقمل المعروف يتولد من العرق والوسخ إذا أصاب ثوبا أو بدنا أو ريشا أو شعرا حتى يصير المكان عفنا قمل قال لي يقانو وحكرنا شابو ديدك مركي وسخي لا صعد يوسخ بمعنى وسخذو marka la itlaaqo siyaabo badan bay ku timaadaa nijaasada way gali meeshan se looma jeedo way dhici kartaa laakiin waxa loo jeedaa oo gali kartaa sidoo kale dhididka iyo busta iyo biilaha iyo waxyaalo badan oo isqabsaday ayay iyadana ku iman kartaa markuu asiibo dhididkaasi dharka ama jirka ama baarinta digaagta iyo waxyaalaha baarinta la Soomaali soo injirtu ma gasho ama meelaha soo kaleeto ama tinta uu asiibo dhididkaas markaasay meeshii waxay noqonaysaa meel isbedeshay cafin cufuunada wax la yiraahdaa al-fasad wa at-taghayyur meeshu markay isbedesho xogaa yara suyacdo ama ay urto ayay markaa ka dhalataa waa dhalashada way macna qodobka waxaan doonayaa inaad fahantaan bimacna waa meesha ay marka hore ka dhalanayso laakiin markay dhalato meesha ku dhalato in bay joogi ma meesha in bay joogi mise way faafi sooma dixiriguba meel wuxuu ka dhashaa marka hore meel qarmuun laakiin marka dambe ma meesha in buu joogaa uu faafaa meelo aan urba ahayn oo udgoon buu iska geli durrab sooma baalkan la yidhaahdo reemagaalku inta badan kutaanka yaqaanaan aweeya waaba injirta laga hadlayo meelaha lagu arkay kutaanka baalka yidhaahdo inta badan wuxuu ka dhashaa
nadaafad xumadu ka dhasha laakiin xagee uu marka dambe ku dambeeya kutaankii meel walba gala waa kan masaajid iyadoo la dhaqahayo maalin kasta la nadiifinayo baashi la taagan yahay haddana waxaad arkaysaa dadka ku socdo marka cayayaanku meeshuu ka dhasho iyo meesha uu marka dambe u gudbo way kala tahay dhalashada marka laga hadlaya waxay leeyihiin waxay ka dhalataa dhidid iyo wasakh isqabsaday halkaasay marka hore ayay ka timaadaa laakiin xaggay hadhow aadaa oo tagi doonaa insha Allah ta'ala mulaaxada way macna sidoo kale al-imam ibn mandur lisan al-arabka ibn mandur al-ifriqi wuxuu isaguna leeyahay sidaas oo kale meel qoyan oo hawo weyday ayay ka dhalataa marka dambana wuu go'go'aa shaygu markuu macna la leeyahay macnaha lagu tilmaamayo isaguna halkaas ku tilmaamayo markaas wuxuu leeyahay hadal qisadii nabiga ayub ayuu hadalka keenay al-imam ad-damiri alayhi rahmatullah wuxuu ka soo guuriyay jaahid waa ninkii iska lahaa kutub badan luqada ah ragga luqada loogu noqdana waa yahay walow diintiisaba hal dureen jaahid wuxuu ka soo guurinaya wuxuu yiri ربما كان الإنسان قمل طباع وإن تنظف وتعطر وبدل ثيابه حاليا بالروح إن دبي عبد السوس كان قط إنه إنشر ماق ليه إنشر تسكوا كما كتب حتى وحيري هدو إسناديفيه وعذر إسمريه ومريها بدشوا إنشروا بقى ولا كريم مال مركب تقوم بيكشاه sooma marka dambe meesha ka baxdo dadka xataa dharka cusub dharka dhaqan cadarka udgoonka nadaafada ay marka dambe gashaa وهذا امر مشاهد وارن يعني معلومه dadka garanaya meelaha ay bahashani joogto hadaad guri ama dad aad wax yar la joogto bahashaasi ay jirkooda ku jirto ama timahooda ama dharkooda markaba waa ku saaqaysaa war xagee iiga timid bahashani waa saaq waa soo carfiyo waa udgoonahayo waa dhaqdhaqnahayo hawsheedu bahashana dabeecaddeeda saas guri dadka degani ay injir qabaan haddaad habeenkaa seexato adoo nadiif ah subaxdii way ku soo raacaan dabeecaddeedu marka wax weeye meel kuma ekaato uraysa keliye meel nadiifana waa gashaa waa gelitaanka ee dhalashada ma soo ma markaasuu wuxuu keenay xadiidkii cabdiraxmaan ibnu cawf oo u tagi doono iyo zubayr ibnu cawaam nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu u ogolaaday in jir baa gashay kadibna jirkoodii ayay dhibaato u geysto xun iyo isxoqitaan iyo isnadaamis bay ku dhalisay kadibna nabigu wuxuu u fasaxay inay xariir xidhaan laana xariirta in jirtu ma karto waxyaalaha cajaa'ibka waxa kamid sifaadkooda sheegayaan dadka judaamka qaba maartay jirkoodu googo'ay in jir ma gashaa leeyahay waxa sheegaya ninka la yiraahdo damiri baa sheegay xayaatul xayawaan kubra markaas waxay leeyihiin ilaahay baa uga naxariistayo haday gasho cunto isma xoqi karaan la jirku waa gogo'ay sooma marka maadaama uu xoqiyay ilaahay baa uga naxariistay marba hadii judaam galo jirku gogo'ay in jirti waa laga ilaaliyay rahmatan min rabbina tabaaraka wa ta'ala meesha marka ujeedadu wax weeyaan xadiiska cabdiraxmaan ibn cawf uu keenay markaas wuxuu yiri walaw annahuma kana fi hadd ad-darura lama adina lahumma fi haddayna daruuro keentay jiri lahayn loo xariirta looma idmin oo haddii kaliya ay ku filan tahay wartimaha iska xiira oo dharka iska bedela hadday ku filan tahay intaasi mas'alada nin muslima in xariir loo ogolaado soo mas'ala culus ma waxa loogu ogolaaday buu leeyahay laana in jirtii bay iska kari waayeen daruuro marka waxa loo baahdo lagu qasbanaaday in xariirta loo ogolaado طيب بالمناسبه wuxuu soo guurinaya sidoo kale oo uu ka soo guurinaya jaahid inuu ka soo guurinaya umaleynaya wuxuu leeyahay min tab'i al-qamli an yakuna fi sha'ri ar-ra's al-ahmar ahmar wa fi sha'ri al-aswad aswad dabeecadda injirta waxa kamida in ruuxa timihiisu guduudan yihiin haday gasho iyaduna way guduudan ruuxa timaha madow markay gashana way isbedeliyo way madoobaan ruux timacado timihiisu cirrayin haday gashana cirray la noqon waa jirjiroola isbadbadal waxay tiri wuxuu yiri wamata tagayara sha'ru tagayara ila lawnihi hadii timihi midabkoodii la bedelo iyaduna way isbedeshaa way raacda markaas wuxuu yiri wa huwa min al-hayawan alladhi inathuhu akbar min dhukurihi waxay kamid tahay xayawaanaadka dhadigoodu uu ka weyn yahay labkooda asal maxaa makhluuqa ilaahay labkiya dhadiga ka weyn asalka labka weyn
sooba xagga xubnaha iyo abuurka iyo laakiin iyadu waa cagsi inay hawaar qabto bimacnaa waxa weeye teeda dhadiga ah baa ka waaweyn labkeeda ka waaweyn saasuu tilmaamaya khasaa'isteeday ka mid tahay الإمام أبو محمد الزبيدي في تاج العروس من جواهر القاموس أسقنا فصل الفاء مع اللام ما يجاوب حكاها الله وحليه قمله معروف والمراد به عند الإطلاق ما يولد على الإنسان مرك الله إطلاق قمل الليلة وحلولت شذا وح إنسان ككرش أما كرش كركيس ويكون عند قوة البدن ودفعه العفونات إلى الخارج أنت بدأ واحد على تابو ليه هاي مركو تشيركو حوق ليه قشين صارنا أو سميني ودفعه العفونات قشين هذا مركو إسكا صاري ديذكو أنت بدأ كوضا شيكو مركو حوق بدن يو قشين كصاري يو هل كازي كرر على تابو ليه الصلاحان تامر كمحان أغاني وحان أغاني إنشير محيط رمى قال كأولي وصي بها نيجي باديه كوكر ما بهنه مقدمة الله هذه واحد هاي قملك أما إنشيرتو إنا يقشوا آدم تشركي مدحي سقشوا أما مريه سقشوا معنى هذا ما إنه أراه يا معنى هذا ما إنه وسخ لي هيبة معنى هذا ما إنه قرن هيبة مسواك قد سنت وتلازم كما دحيه إنشير باق شيء iyo wasakaysan yahay talaasum kama dhaxeeyo waa muqaddimada in taqriir loo baahan waa bimaana si kala hadaan u dhahno injirtu ma laazim ba meel urayso inay khaas ku ahaato mise waxay gali kartaa meel nadiifana waa tagi kartaa طيب jawaabtu waxa weeye وبالتالي hadaynu nidhaahno meel uraysa basay gashaa nabigana aynu dhahno injir baa gashay caybay noqoni sooma haddaan se sugno inay injirtu gasho meel nadiifa oo udgaysa nabigiibay gashay cayb ma ah laana nadaafadii iyo udgoonkii iyo gelitaankii isma diidayso markaa sooma طيب aan taqriirina marka hadalkii jaahidan hadda soo naqlinay maxaa ku soo maray ya ruux isagoo isnadiifiyay oo cadar ismariyay oo dharkiisa dhaqay inay gali karto sooma soo maray طيب injirtu inay gasho marada nadiifta ah iyo shirka nadiifta ah iyo madaxa nadiifta ah isagoo waliba cadar la mariyay arinta iyadana waa tijaahidan hadda ka soo sheegnay mana inkiri karo illa ruux uun iska mucaanido iska madax adag mooyee yaani inay meel walba gali karto markay dhalato kadib ninka inkirayay waa inaan waxba la socon ama jaahil ama mutajaahil cid kasta oo meesha ay ku nooshahay yaqaanana uu garanaya dhaqanka iyada inay leedahay oo ay ka gudubto meeshii ay markii hore ku beerantay saas daraadeed baa mutaakhiriinta qaarkood oo xadiiska sharxaya wuxuu leeyahay lam yakun alqamlu fi ra'sihi litakawunha min at-tafal rag mar dambe dib ka yimid baa shubhadan keenay ragaasu marka kamid wuxuu leeyahay madaxiisa kuma jirin injir maxaa yeelay injirtu waxay ka dhalataa tafal bay ka dhalataa tafalku waa qashinka ولم يكن هناك نبي مدحيسنا كما جيرين فإما أن يراد مجرد الفحص لما فيه من الراحة حديث كان ده هيناوي مر فليغا محل ولا جدا وحو ليه لaba mid baan ku fasiri karnaa inaan nidhaahno madaxay baadbaadayso u taataabanayso si ay ugu raaxayso ya oo ruuxa wada aragtay markii adiga madaxa lagu salsalaaxo oo laga galgaliyo muxuu ahay faraha laga marmariyo soo wuxuu iska hurdoon mayso marka wadaadkan wuxuu leeyahay gabadhu madaxa nabiga waxay ugu salsalaaxaysay waxay ahayd inay u raaxaysay waa la dhihi karaa wuxuu yiri aw an yakuna min ghayri fa wasala ilayhi aw waxa la dhihi karaa in jirtu nabiga kama dhalanin sallallahu alayhi wasallam laakiin meel kale ay ku dhalatay oo markaas ay u soo gudubtay warka hore oo madaxiisa ka baadbaadaysay ah waxaan u jeedaa raaxay u sameeynayay hadalka waxa soo guuray intaan ka gudbin wuxuu ku yaalaa awjazul masalika وليه نك اللي هذا كان دهلوي مجلد كسيدات صدان هيو صفحة شم بقول يسودن يكو أوجز المسالك إلى موطئ مالك موطئ مالك نك شرحيه لو أرمى مركب ملاحظة هذا الكيس وليه هي وحلقي الله نهي كرا لقي أبا إن لو فسره وحيوتا تابني زين أرى حيس وأوتجدون كتب القضاء يا علماء حديث كشرح ذيتونا هل ننأ أو يري متشرو وحي مدح وتتابنيسي الراحين درتت ولا كتبت اللغة كما إيمان كلمة إن قابك الله استعمال ولا أئمة حديث كشرح ذي منا مكين وركاس مركب ور بعيد
وانا وتجي دونا شرحيس ان شاء الله تعالى halkaas ayaan darsigeena caawa ku joojinayna in sha Allah ta'ala